بسم الله الرحمن الرحيم دعوة لك أنا جلس عطانا وبرتا يوتيوب كلنا على 24 بوستي هذه جروح أنا قبرتين ورك عالم كجاران حسد كالا سون يوكرين روسيا تاريخ ضمان توصل حدي بشي لحد لواتن لبو وزارة الدفاع عشان دولة روسيا يا مان صوب دكتي كانت على كهرتها ديارها iyo gantaalada cadawga soo tuuraan sidoo kale daawadayaal wasiirka gaashaandhigga bartiisa soo dhigay Twitter-ka iyo Facebook-ga dowladda Russia ayaa wacd ku maray inay dhulka soo dhigin doonaan diyaaradaha cadawga iyo madaafiicda ka yimaada xagga cadawga kuwaas oo ah gantaalada ridada dheer iyo diyaaradaha qumaati u kaca kuwa drone-iska iyo diyaaradaha miigagaba waxay wacd ku maray wasiirku inay u diyaar garoobayaan dagaal ay la galaan dowladaha shisheeye markii dowladda Mareykanka madaxweynahoodu oo wiigi hore sheegay inaan gantaalada loo dirin doonin dowladda Ukraine waxaa gantaalka magaciisa la yiraahdaa Advanced Rocket System gantaaladaas oo hameen ku dhawaaqay madaxweynaha dowladda Mareykanka in la siin doono dowladda Ukraine gantaaladaas oo halis u keeni doona dowladda Ukraine iyo midowga Yurub iyo dowladda Ingiriiska iyo dowladda Mareykanka wuxuu wacd ku maray madaxweynaha dowladda Russia inuu dhulka la simin doono dowladaha midowga Yurub dowladda Ingiriiska iyo dowladda Mareykanka haddii ay isku dayaan in gantaaladaas la keeno dalka Ukraine daawadayaal sida arkaysaan waxaa maanta la geliyay ciidanka cirka ee dowladda Russia waxaana halkaas ka cad in loo diyaar garoobayo dagaalka saddexaad ee adduunka dowladda Mareykanka ma wado wax waana waxay ku shidaysaa dabkii shidnaayay wax ku shubta hadda baasiin iyo batrool cirka ayuu isku shareeray dagaalku maalin walba waxay dowladda Mareykanka halkaas ku sii daabulaysaa sanadaha iyo hubka noocyadiisa kala duwan iyo qalabka caafimaadka iyo lacag iyo raashin daawadayaal dagaalka hadda waxaa loo arkaa in dowladda Mareykanka ay guul ka gaarayso dagaalku wuxuu socdaa 100 maalmood maalintii 100aad ayuu galay maanta ay ku egtahay maalintii 100aad waxaa la sheegayaa in dowladda Ruushku ay ka gaadhay dagaalka guul aad u waaweyn daawadayaal sidoo kale maanta dowladda Russia waxay soo bandhigeen 40 ka mid ah maraakiibtooda dagaalka ee Pacific Ocean-ka 40 maraakiibta dagaalka kuwaas oo ku rakiban yihiin gantaalada qaaradaha iskaga guusha iyo kuwa qaada hubka nuclear-ka arrintan waxay u diraysaa fariin ama signal dowladaha reer galbeedka iyo NATO iyo dowladda Mareykanka in dowladda Russia ay u diyaar garowday dagaal inay kafool la gasho dowladaha reer galbeedka iyo Mareykanka uu hormuud ku yahay daawadayaal dowladaha midowga Yurub shacabkooda ma turayaan waayo dalbaxada ugu horeysa waxay ku dhacaysaa dowladaha midowga Yurub gaar ahaan dowladda Jarmalka Faransiiska iyo Ingiriiska wuxuuna wacd ku maray madaxweyne Putin inuu dhulka la simin doono sidoo kale dowladda Taiwan waxay u diyaar garoobaysaa oo tababar degdeg ah siisay shacabkoodii tababarkaas oo qaadanaya muddo 10 wiig waa tababar aad khatar ah waxaa la arkayaa ciidamada loo tababarayo oo biyo kulul madaxa looga shubayo oo inta gacmihii laga xiray calooshooda ku soconaya dhagaxun ayagoo qeylinaya ayaa la arkayaa dhalinyaradan ardayda u badneed ayaa hadda waxaa loo tababarayaa inay dalkooda difaacaan dowladda Taiwan waxay ka baqaysaa haddii dagaalka uu qarxo oo saddex geesoodu noqdo in dagaal degdeg lagu soo qaado wayna u egtahay xaaladdu xilli walbana way isbedeli doontaa daawadayaal dagaalku wuxuu yeeshay weji kale dowladaha Afrikaanka maanta madaxweynihii dowladda Senegal oo ah madaxweynaha midowga Afrika ayaa tagay wadanka Russia wuxuu la kulmay madaxweyne Putin dhigiisa wuxuuna kala hadlay in maartay Afrikaanka loo turo wuxuu yiri Afrika dagaalkan waa saameeyay si xun noo saameeyay xagga dhaqaalaha shidaalka iyo cuntadii madaxweyne waxaan ka codsanaynaa dagaalka in xaaladda la qaboojiyo oo wada hal arrinta lagu dhameeyo sababtoo wuxuu yiri dibka wuxuu yiri Yurub ka taagan iyo Ukraine anagana wuu saameeyay dadkayguna wuxuu yiri maciishadii ku qaliyooday daawadayaal dagaalka hadda waxa uu noqday weji kale uu sii galayaa madaxweyne Putin uu futbol baa ku soo qulqulaysa sababtoo guul ayuu hadda ciidamada Ruushka ay gaareen sidoo kale daawadayaal waxaa la filayaa in dowladda China ay qabsato dalka Taiwan-intu hadda waxay tababarayaan shacabkoodii kumanaan shacab ayaa tababar aad u culus ay geliyeen waxaa la arkayaa ciidamadii oo ku soconaya dhagaxunta ayagoo biyo quusaya ayagoo biyo lagu shubayo ayagoo dhiig la marmarinayo halkaas waxaa tagay TV-yada caalamka Taiwan waxay diyaar garoobaysaa dagaal ay kala hortagto dowladda China uma malaynayo marka inay iska difaacan karaan marka dagaalkaas baa ka qarxa dhulkaas koonfurta Asia
kolley Asian kalena uu saameyn doonaa. Hindiya Bakistan inay isku dhuftaan baa laga baqayaa. Bakistan iyo China xiriir bay leeyihiin. Xaaladdu ma sahlana daawadayaal. Haddii dagaalkan dagaal nuclear noqdona dee waxay u egtahay dhammaadkii adduunka. Sidoo kale daawadayaal, hadalka halkaa ku qoran aa ujeedaan waa madaxweynihii Mareykanka uu hore sheegay inaan hubka la diri doonin. Hubka hadda keenay in dagaalka la isku adeegsan doono hubka nuclearka. Waa kaas madaxweynihii Mareykanka oo dhahaya ma dirina anagu hubkaas. Daawadayaal saa ogtihiin baa la socotaanba dagaalka wuxuu socdaa 100 maalmood. Dad ku dhow ilaa 6,800,000 oo qof ayaa ka qaxay dalka Ukraine. Shacabka Ukraine tiradooda waxaa lagu qiyaasaa 40 milyan inay gaarayaan. Dadkaas waxay u kala qaxeen wadamada dariska la ah, Latin America, Mareykanka. Daawadayaal, dagaalka ilaa hadda wax waana ma laha. Madaxweynaha dowladda Ukraine afka ayuu furtay. Wuxuu sheegay in ciidankiisa maalintii 100 ay dhintaan, 100 ay dhaawac gaarayaan. Wuxuu sheegay dalka badankiisii gobolka la yiraahdo Donbas region in Ruushku uu qabsaday oo hadda waxay u dhiman yihiin in gacanta Ukraine uu la wareego. 100 maalmood ciidamada Ruushka ay ku dhowaa magaalada Kiev. Waxaa la soo bandhigay ilaa 1,000 taangi in laga gubay iyo ilaa 10 kale oo baabuur ay sii sheegayaan Ukrainiyiintu oo la keenay bartamaha magaalada Kiev. Marka hadda dagaalka wuxuu u bedelay Ruushka bariga dalkaas. Bariga dadka waa ka soo qaxayaan, tareenada ayay saaran yihiin. Gobollada bariga ayuu hadda qabsaday dhulka xeebaha ku tirsanaayo dhan madaxweyne Putin. Daawadayaal, dagaalku uu kala sii yeeshay magaalooyinka hadda uu qabsaday madaxweyne Putin waxaa ka mid ah Izium, Rubice, Donetsk City iyo Severodonetsk. Magaalada hadda u dhiman waa Severodonetsk. Severodonetsk waa caasimadda gobolkaas Donbas. Hadduu magaalada gacanta ku dhigo ilaa maanta ilaa berri guusha ugu weynayd ayuu gaaray gobolkaas uu soo afjaray. Magaaladaas waxay ku laalaysaa magaalada caasimadda ayuu kusoo kala fireyn doonaa haddana oo dhinaca koonfurta iyo wax kusoo geli doonaa bartamaha iyo barigaba. Dhinaca Belarus waxaa la rajeynayaa inuu kusoo galo. Daawadayaal.